بسم الله الرحمن الرحيم. Golaha Wasiirrada ee Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa ee toddobaadlaha ayaa waxaa lagu soo bandhigay warbixino dhowr ah oo la xiriiray safarkii Nabadda iyo Midnimada ee ra'iisul wasaaruhu ku tagay deegaanada SSC Khaatumo, xaaladda guud ee amniga iyo waliba horumarka dowladda Soomaaliya ay ka samaysay xagga dhaqaalaha dalka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Hamza Cabdi Barre oo shirka gudoominayay ayaa golaha warbixin dheer waxa uu ka siiyay safarkaasi Nabadda iyo Midnimada ee isaga iyo wafdigiisa ay ku tagaan magaalada Lascanod ee xarunta maamulka SSC Khaatumo intii u dhaxaysay 12 ilaa 15 bishan Abriil. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in safarkaasi Nabadda iyo Midnimada uu xaqiijiyay runtii guulo waaweyn oo ku qotoma nabadda, horumarka, dib u dhiska iyo dib u heshiinta dalkeena. isagoo intii uu ku sugnaa deegaanadaasi la kulmay mas'uuliyiinta SSC Khaatumo, baarlamaankooda, hogaamiyaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah oo runtii uu ka dhageystay aragtidooda la xiriirta nabadda, dowlad dhiska iyo waliba midnimada iyo sidii loo horumarin lahaa adeegyada bulshada ee dowladdu ay gaarsiinayso deegaanadaasi. intii uu ku sugnaa magaalada Lascanod, ra'iisul wasaaruhu waxa uu dhagax dhigay isla markaana uu xariga ka jaray in ka badan 10 mashaariic horumarineed oo dowladda Soomaaliya ay ugu tala gashay dadka deegaanka. safarka Nabadda iyo Midnimada ee ra'iisul wasaare Hamza ayaa waxa uu xaqiijiyay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay si buuxda u aqoonsatay maamulka SSC Khaatumo oo hadda kadib aanay ahayn deegaano lagu muransan yahay. waxa kale oo guulaha la gaaray ee socdaalka ra'iisul wasaaraha kamid ahayd in dowladda federaalka ee Soomaaliya lagu wareejiyay 25 maxaabiis oo kamid ahaa maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii Somaliland iyo dadka reer SSC Khaatumo kuwaasi oo lahaa duruufo gaar ah oo bini'aadanimo iyo caafimaad, waxaana ay la yimaadeen magaalada Muqdisho wafdiga iyadoo dib loogu celin doono ehelkoodii iyaga oo bad qaba. kulanka Golaha Wasiirrada ee maanta waxa uu bogaadiyay hadaba guulahaasi laga gaaray safarka ra'iisul wasaare Hamza Cabdi Barre oo ku tagay magaalada Lascanod, kaasi oo xaqiijiyay wadajirka, nabadda, midnimada iyo waliba dowladnimada loo dhan yahay ee Soomaaliya. sidoo kale shirka Golaha Wasiirrada waxa lagu soo bandhigay warbixino kale oo la xiriira dagaalka lagula jiro kooxaha khawaarijta oo guulo waaweyn ay ka gaareen ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka iyo guud ahaanba xaaladda amniga ee dalka iyo horumarka dowladda Soomaaliya ay ka samaysay dhinaca dhaqaalaha dalka. wabillahi tawfiiq.